wakhtigii bandhigga baabuurta waxaana soo gelaya gaadiid waaweyn oo xambaarsan baabuuro qurux badan. Bal fiiriya kan wuxuu leeyahay gacanta birlabka ah ee wax qaada, waa yaab. Saaxiibayaal, waxaan haynaa gaari xambaarsan 6 gaadiid adeeg bulsho ah iyo mid kale oo siday 4 baabuur tartan ah. Aan marka hore eegno baabuurta tartanka. Bal eeg sida aan baabuurka ugu qaadi karno gacanta birlabka ah. Baabuurkeenna ugu horreeya waa midab buluug iyo jaalle ah, waana baabuurka koowaad. Aad buu u dheereeyaa, waanan sugi lahay inaan arko isagoo tartamaya. Hadda aan qaadno baabuurka xiga. Waa baabuur caddaan iyo casaan ah, waana kan labaad. Aad buu u qurux badan yahay, gaar ahaan xariiqyada dhinacyada yaalla. Baabuurka saddexaad waa jaalle iyo casaan, waana kan saddexaad. Waxaa la moodaa inuu tartamo badan ku guulaystay. Ugu dambayn, waa baabuurkeennii ugu dambeeyey ee tartanka, buluug iyo jaalle, kan afraad. Maadaama uu yahay tiro 2 u qaybsanta, waxaan dhigaynaa agta kan labaad. Wax yar kadib ayaan ogaan doonaa baabuurka ugu dheereeya, balse marka hore aan eegno gaadiidka adeegga bulshada. Trailerkii wuxuu isu beddelay jaranjaro ay baabuurta ku soo degayaan, waxaana helnay 6 gaari oo midabo kala duwan leh. Gaadhiga ugu horreeya waa gaari dabdamis casaan ah. Gaadiidka dabdamisku dabka ayay demiyaan si ay dadka u badbaadiyaan. Kan xiga waa bas dugsi oo jaalle ah. Basaska dugsigu carruurta ayay geeyaan iskoolka kana soo qaadaan. Gaadhiga saddexaad waa gaari cagaaran oo dib u warshadayn ah. Gaadiidkan wuxuu qaadaa warqad, dhalo iyo caag si dib loogu sameeyo wax cusub. Halkan waxaa imaanaya gaari booliis. Ma maqasheen dhawaaqa seeriga? Booliisku waxay naga caawiyaan ammaanka. Gaadhiga ku xiga waa ambalaas. Ambalaasku dadka jiran ama dhaawacan ayuu u qaadaa isbitaalka si ay u bogsadaan. Ugu dambayn, waa gaari jiidaya baabuurta burbursan. Wuxuu baabuurta dhaawacan u qaadaa farsamayaqaanka si loo hagaajiyo, waa sida ambalaas u ah baabuurta. Baskeennu wuxuu rabaa inuu ku ciyaaro simbiriirxada, balse sidee ayuu ku kori karaa? Wuu isku dayay, balse wuu ku guuldarraystay. Bal eeg, wiish baa yaalla, kaas baa shaqaynaya. Baskeennu wuxuu raacay wiishka ilaa dabaqa sare, kadibna hoos ayuu u soo degay simbiriirxada. Allah! Wuu shil galay. Ambalaaskii ayaa yimid si uu u geeyo darawalkii isbitaalka. Dabdamiskiina wuu yimid si uu dabka u damiyo. Shaqo wanaagsan. Dabka waa la baktiyey. Gaadhigii jiidayey ayaa qaaday baskii si loo dayactiro. Hawalwelin wuu soo hagaagi doonaa. Markii uu soo laabtay, wuxuu u baahday shidaal, kadibna wuxuu u kacay simbiriirxadii ugu dheerayd. Aad bay u xiiso badnayd. Hadda waa wakhtigii boodboodka baabuurta. Waxaan diyaarinay meel ammaan ah oo ay ku degayaan ciid jilicsan. Gaari qashin qaada iyo mashiin ciid riixa ayaana naga caawiyey. Marka hore waa gaari dabdamis. Wuu booday, si dirqi ah buu ku guulaystay. Kadib waa gaari dib u warshadayn ah, wuu dhacay, balse wuu gudbay. Wuu wasakh noqday, marka waa in la dhaqo. Ambalaasku isna wuu booday, si dirqi ah buu ku badbaaday. Ugu dambayn waa gaari booliis, wuxuuna si cajiib ah uga booday dhammaan basaskii. Hadda waa wakhtigii tartanka. Kee baa ugu dheereeya? Baabuurka koowaad mise kan labaad? Tartankii waxaa ku guulaystay kan labaad. Tartanka xiga wuxuu dhex maray kan saddexaad iyo kan afraad, waxaana ku guulaystay kan afraad. Ugu dambayn waa tartankii kama dambaysta ahaa. Kadib marka dib loo daawaday, guusha waxaa qaaday kan labaad, wuxuuna helay koobka dahabka ah. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar. Mar kale ayaan is arki doonnaa, nabadgelyo.